magaalada Baydhabo ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligan aan ku hadlayo waxaa laga maqlayaa rasaas goosgoos ah iyo hub nuuciisu yahay koox culus. Durbadiiba shacabka magaalada Baydhabo ayaa bilaabay inay isaga baxaan xaafadaha ku dhow fariisimaha ciidan iyo gabi ahaanba suuqii weynaa ee magaaladaasi Baydhabo oo shacabkii ayaa guryahooda ku xarooday. rasaastan iyo u dhaxaysa ciidankii ka amar qaadanaya lafta gareen ee dhaqdhaqaaqyadii saacadii la soo dhaafay ayaa weerar ku akeeyay Baydhabo mise xaalad kala jirta. daawade intaan ku faahin muuqaalkani like saar muuqaalka oo soo follow garee boggeena siina share garee oo la wadaag asxaabtaada si muuqaalku meel sare u gaaro. magaalada Baydhabo ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligan iyo daqiiqadan aan kula hadlayo waxaa laga maqlayaa rasaas culus iyo hub nuuciisu yahay kuwa culus. haddaba maxaa soo kordhay? inkastoo aan la ogeyn cidda rasmiga ah ee rasaastan iyo dagaalka u dhaxeeyo, haddana waxaa duleedka Baydhabo si weyn loogaga maqlayaa hubkaasi culus. waxaa aad looga cabsi qabaa in ciidankii ka amar qaadanayay hogaankii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagreen in weerar ay ku soo ekeeyeen Baydhabo. hase ahaatee bartamaha TV ma xaqiijin karo, balse waxaad ku ogaan doontaan xogaheena iyo wararkeena dambe. ciidanka ka amar qaata hogaankii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagreen saacadihii u dambeeyay waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoo uu ku biiray sida warbaahintu saacadihii la soo dhaafay ay markaasi xaqiijisay taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed taliye shub isagoo ku sugan duleedka Baydhabo isla markaasi toos ah u tagay furinta si uu halkaasi ugala dagaalamo hogaanka cusub ee gacan ku rimiska ah ee dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay Baydhabo ka dhistay. xog walba iyo xaalad walba oo ku soo korantay magaalada Baydhabo ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya halkan oo ah bartamaha TV aad ka daawan kartaa. muuqaalkani like saar siina share garee.